Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo wafdi uu hogaaminayo ka kooban xukuumaddiisa ayaa booqasho 48 saacadood qaadatay waxa uu ku tagay wadanka Masar waxaana halkaas uu kula kulmay madaxweynaha dhigiisa ah ee wadanka Masar Abdel Fattah al-Sisi iyadoo lagu soo dhaweeyay magaalada Qaahira isaga iyo wafdigiisiba madaxweynayaasha Jabuuti iyo sidoo kale Abdel Fattah al-Sisi ayaa waxay yeesheen kulan toos ah waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan iskaashiga labada wadan iyo dhinaca dhaqaalaha oo ay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca iskaashiga dhaqaalaha ku saabsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa safarkiisa ku wehelinayay wasiirka amuraha dibadda Maxamed Cali Yuusuf Ilyas Muuse Dawaale wasiirka maaliyadda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo xirfadaha iyo sidoo kale gudoomiyaha dekedaha iyo sidoo kale aaga cashuuraha ka caagan waxaana xukuumadda Jabuuti iyo sidoo kale Masar ay isweydaarsadeen heshiisyo ku saabsan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha